Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo uu wehelinayo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa kulan habmaqal iyo muuqaal ah kula qaatay xubnaha beesha caalamka ee taageera Soomaaliya. Mas'uuliyiinta beesha caalamka ka socotay ee kulanka ka qayb galay waxaa hogaaminayay danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan. Kulanka ayaa looga hadlay xaaladda cudurka coronavirus iyo saameynta caafimaad iyo mid dhaqaale ee ku yeelan karo maamulka Puntland iyo diyaargarowga Puntland ee cudurkan iyo doorka beesha caalamka uu ka qaadan karo dadaalka ka socda Puntland ee looga hortagayo COVID-19. Shirka waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland sida wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka caafimaadka, wasiirka qorsheynta iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland. bismillahi raxmaani raxiim maanta ay taariikhdu tahay 16 bisha abril 2020 madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxa ay qaab maqal iyo muuqaal ay shir kula qaateen xubnaha beesha caalamka ee taageera arrimaha Soomaaliya iyadoo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay ku sugnaayeen xarunta qasriga madaxtooyada ee Puntland ee Garowe mudanayaasha kale ee ka socday beesha caalamkana qof kasta uu xafiiskiisa u joogay ayaa si toos ah maqal iyo muuqaal ay kulankan u dhacay oo shirka u dhacay kulanka waxaa dhinaca beesha caalamka xubnaha ka socday hogaaminayay danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan sidoo kale waxaa qayb ka ahaa ergeyga midowga Yurub ee arrimaha Soomaaliya Ambassador Nicholas waxaa sidoo kale qayb ka ahaa safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya danjirayaal wadamada midowga Yurub kamid ah sida Sweden Germany ayana ka socday waxaa sidoo kale ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday World Bank ujeedka iyo kulanku intii uu socday waxyaabaha laga hadlay waxa ugu muhiimsanaa oo aad looga hadlay xaaladda cudurka coronavirus oo adduunka halis ku haya si xawlina ugu fidaya iyo waliba Puntland sida ay ugu diyaar garowday wacyigelinta iyo ka hortagga heerka uu marayo saameynta dhaqaale ee uu xanuunkaasi yeelan karo iyo waliba doorka looga baahan yahay beesha caalamka madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu la wadaagay beesha caalamka sida ay dawladdu ugu diyaar garowday iyo tallaabooyinkii ay goor horeba qaaday iyo sida ay u socoto wacyigelintu iyo waliba saameynta dhaqaale ee uu yeelan karo iyo warbixintii ay Puntland dhawaan ay ka diyaarisay xanuunkaasi iyo saameynta uu ku yeelan karo guud ahaanba Puntland beesha caalamka xubnaha ka socday si weyn ay Puntland ugu bogaadiyeen in Puntland goor horeba ay bilowday diyaar garowga iyo wacyigelinta ka hortagga COVID-19 iyo waliba awaamirta dawliga ah ee hirgalay iyo dadku sida ay go'aamada ay dawliga u qaateen iyo wacyigelintu sida ay aad uga socoto warbaahinta arrintaasina aad ayay u bogaadiyeen shirkuna waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda Puntland sida wasiirka arrimaha gudaha wasiirka caafimaadka wasiirka qorsheynta iyo waliba saraakiil madaxtooyo waxaana uu ku soo dhamaaday guul Maxamed Ruuray Galmudug TV